talooyin iyo tilmaamo u baxshay nin oday ah ula dhaqan dadka sidaad u jeceshahay in lagula dhaqmo. haddii aanad lahayn hanti aad dadka ku raali geliso, ha u waayin hadal aad niyadooda kaga farxiso iyo weji furan. qofka aadan aqoon ee kocaaya ha u jawaabin, waayo kuma yaqaano waxa gash iyo waxa guddo. kan ku yaqaan ee kocaayana ha u jawaabin, ee waxa uu kugu caayay haddii aad leedahay iska hagaaji, mucaaradkaagana ka dhiga muraayadaada. meel walba oo kaa dhaliilana iska sax. dadka waxa awoodo ku caawi, eray iyo adduun midka oo ahaadaba. haddii aad tahay mid dadka aan waxba tarayn, waxyeeladaada ka dayso. afartan arrimood qofkii kugu waaniya dadka kaaga dhowaado: 1 cibaadayso, 2 shaqayso, 3 guurso, 4 waxbaro. adduunyada hantida tacabkeeda oo lagu dadaalaa sharaftaada ayaa ka mudan, ee ku dadaal sharafta. inaad shakhsiyaadka weynayso oo aad hoos isku dhigto agtooda karaamo lagagama gaaro, ee laga yaabaa inay ku arkaan qof liita. balse Ilaahay oo la isu dhul dhigo aadna loo caabudo ayaa cise iyo sharaf laga helaa. arsaaqadaada eebba ayaa qoray, cidna cid kale waxay leedahay ma qaadato, ee cidna adduun ha ugu caroon. cid kasta oo ku dhaantana u ducee si aad adna wax u hesho.